cabdirasaaq waxaad sheegtay inaad soo jeedinayso in militariga somaliland dhulkaas laga saaro go'aanadii golaha dhaqanka ay gaareen ee ah inaysan somaliland ka mid ahayn adigu siday kula muuqdaan aniga waxay ila muuqdaan in lagu ixtiraamo go'aamadooda waana raacsanahay in lagu ixtiraamo waana cadaynayaa way awalna way mudnayd haddana way mudan tahay somaliland iyadaa ogolaatay mar hore iyo mar dambaba shirkii talaax bay ogolaatay kadib markay arkeen dadkan in ay qadiyadoodu ay tahay qadiyad masiiri ah oo somaliland inay ka qayb noqdaan iyo in kale aanay doonaynin in ay shiraan talaax baa lagu ogolaaday khaatuma taa waa in la ogaado haddeerna laascaanood shirkeeda dowladda somaliland iyo maamulka somaliland baa fasaxay oo ogolaaday maxsuulkii ka soo baxayna waxa weeye dadka deegaanku in aanay ku qanacsanayn inay ka mid noqdaan somaliland oo ay ka baxeen taa waa in la ogaado inaan lagu bedeli karin xabad iyo dhiig qulqula waayo kaasi xal maaha wuu uga sii daray arrinta wuuna uga sii daray sidaa darteed waxaan leeyahay waa in lagu ixtiraamaa go'aanka iyo talada ay gaadheen oo meel kale looga wareegayo sidii kale loo wada noolaan lahaa iyo wixii doodee laga qabo arrintaa xilligeeda iyo timekeeda loo daayo laakiin maanta dhiiggan la joojiyo ciidankana laga saaro meesha cabdirasaaq cataash marka warkaagu wuu cad yahay waxaad taabacsan tahay go'aankii golaha dhaqanka SSC ee laascaanood cabdirasaaqow dadka siyaasadda maanta ama somaliland ha noqoto ama soomaalida kale gacmaha kula jiraa labay u qaybsamaan dad waa dad ay shaqo u tahay shaqo ka doonta siyaasadda dadna waa dad ummadda inay noolaato oo ay ku noolaato nololtay maanta ku nooshahay ka fiican dhirindhirinaya anigu waxaan ka mid ahay dadka intijaaha doonaya inay kasii wanaagsanaato environmentiga siyaasadeed ee dadku inuu ka fiicnaado maalinta ka dambaysa sidaa darteed haddaadan cidda aad adigu ku matasho siyaasadda aadan go'aamada rasmiga ee bulsho aqbalin naftaadaad been u sheegaysaa dadka iyo deegaanka aan ka soo jeedo cidda u talisa ee go'aamada dhaqan ugu talisa ee bulshada ka mas-uuliya maanta aynu joogno waa dadka isimada ee laascaanood joogay 14 ah guddina waxa uu guddiga 30 iyagu ay doorteen qof kastoo deegaanka iyaga ka soo jeedaana wuu ku khasban yahay inuu ixtiraamo oo uu ku taagnaado horta taana waa caddaynaya iyadana waa insaa loo fahmo go'aanku waxa weeye cabdirasaaqow in aan anigu caddaynayo maanta laga bilaabo inaan ahay qof shacab oo ganacsada ah anigu xirfad baan leeyahay aan siyaasad ahayn oo kale anigu nin businessman aan ahay ummadana la jeclaa inay wada jirto wada noolaato waxaan caddaynayaa in aan totally faraha kala baxay siyaasaddii somaliland aanna doonayo inaan noqdo qof shacaba oo ganacsada ah oo ummadda wixii khayr ah ee ay ummaddaasi ku wanaagsanaanayso ama nabad ha noqoto ama ha noqoto wax kaloo khayriya inuu ka shaqeeyo mooyaane aan siyaasaddanba ka shaqaynayno somaliland xisbigaagii waa beri siyaasaddii aad ku jirtay doorashadii hankii aad ribtay waxoo dhan bannaankaad ka tahay cabdirasaaqow waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dadkii sharafta lahaa aqoon-yahanka ahaa dhalinyaro iyo gabdhaba lahaa ee aan soo wada shaqaynay ee ururka waa beri dhidbada ila taagay oo runtii dad aanan weliga ilaaweyna oo runtii juhdi iyo garab istaag aan caadi ahayn oo aan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo ila galay inaan halkan aad uga mahadnaqo aan idhaahdo waxaynu u halgamayno u wada shaqaynayna waxay ahayd sharaf iyo dadka waddanka degan inay walaaloobaan tiina maanta farahay ka baxday ataashna wax kama qaban karayo waa berina wax kama qaban karayo sidaa darteed inaan iska casilay guddoomiyihii ururkaas aanna ka baxay siyaasaddii somaliland aanna totally aan noqday qof shacaba oo doonaya inuu danihiisa ganacsi u madax bannaanaado dadkaana aad baan u mahadnaqayaa ehlu sharafka ah ee gobollada degan dalka meesha joogaanba ha ahaadee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan gobollada maroodjeexa hargeysa berbera awdal iyo gobolka togdheer si gaaraan ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq cataash marka waxaan kaa qoraynaa maanta cabdirasaaqow inaad ganacsado tahay cabdirasaaq cataash ah laakiin mabda ahaan mowqif ahaan iyo aaminaad ahaanba aad ku daba feeshan tahay qadiyadda laascaanood golahaasi dhaqanka iyo guddiga 33 ah iyo wixii ay ku taliyeen cabdirasaaqow eeg marka laga hadlayo golaha dhaqanka waan kuu sheegay qof kastoo deegaanka iyaga ka soo jeeda go'aan aanay ahayn bulshadaasi go'aan aanay gaadhin uma aha go'aan matalaadyadu cidna ku mateli karto ama aniga ha noqdo ama qof kale toonna ha noqdo taas markii hore aan kuu caddeeyey waxaa
timid siyaasadii totally halkaasaan dhigay wax allaale iyo waxay noqoto anigu qof ganacsada baan ka noqday meesha doonto ha noqoto marka halkaas weeye meesha aan rabo inaan kala saaro go'aan iyo talo waxa uu ah ummadda aan ka soo jeedo go'aanka isimada ay gaadheen iyo dadka ayagu ay sameeyeen ee 3 guddiga taasaa talo oo ah oo aan qof kasto deegaanka iyaga talo oo ay go'aan ama hadday noqoto siyaasadda anigu ganacsi baan u leexday awla ganacsadaan ahaa cid allaale iyo ciddii siyaasad ka shaqaynaysa ayaa markaa kala shaqaynaysa isimada wax allaale iyo wixii intaa ka baxsan cabdirasaaq waxyar aan dib u noqonno 2 jeer wasiir noqotay marna madaxweyne siilaayad wasiir u ahayd hadda oo u dambeysana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa kaloo ognahay inaad Muuse Biixi saaxiib dhow u ahaydeen oo xitaa inaad urur furato oo reerahaas aad adiga ka dhalatay ay xisbi yeeshaan yaad ku heshiiseen baa la yiri ogaalkayga adiga Muuse Biixi xageed ku kala leexateen su'aal fiican cabdirasaaq horta marka hore kala leexashada Muuse Biixi horta marka hore anagu saaxiib soo jireena oo isqaanay ma aan ahayn anigu dalka 12 sano ka hor soo noqday qurba ka soo noqday xilliga oo baan way isbarnay 12 sano tan kale saaxiibtinimadan dhowey siyaasadeeda hadda aad ka hadlaysana horta Soomaalidu waxay tiraahdaa siyaasaddu saaxiib joogta ma leh dan joogta bay leedahay madaxweynahana waxa aad loogu xantaa inuu leeyahay dan joogta aan saaxiib joogta lahayn xilligii anigu aan ururkan furayay iyo xisbigan aan furayay qadiyaddeedu qadiyad cad bay oo markhaatiyaal leh dadkana waxaan rabaa inay dhageystaan maanta oo ay ogaadaan waxay markhaati ku lahayd ujeedada kaliya ee aan anigu siyaasadda ugu noqday oo aan xilligii Siilaanya ka baxay waxay ahayd dhibaatada ka taagneyd gobolada bari haddaad qof walba khudbadahaygii uu dib u dhageysto ama YouTube ka eegana wax kale kama hadlijin anigu dadku qabyaaladana inay iska daayaan ayna dadku u midoobaan noloshooda in ay noqoto inay dadku isaqbalaan oo wax ka dhaxeeyaan ummadda wax loo qaybiyo marka Muuse Biixi waxa ay ahayd xilli uu aniga uu soo bandhigay inaan ku biiro xukuumaddiisa aan wasiir ka noqdo condition baan ku xidhay condition-kan ku xidhayna wuxuu ahaa in dadka iyaga dhibaatada haysata dadka aan ka soo jeedo ee gobolada bari dhibaatada haysata inay ka weyn tahay mid wasiir xallin karayo sidaa daraadeed inaan leeyahay han ah inaan dalka madaxweyne ka noqdo oo aan ka qayb galo tartanka ururada iyo xisbiyada aan ka mid noqdo arrintaa haddii madaxweyne ka ahaan uu diyaar u yahay dalka in la miisaamo taladiisa oo taladan gacanta beesha dhexe ku arurtay laga furfuro oo lala yeesho dalka taladiisa in markaa aan muddada uu furayo xisbiyada iyo ururada aan sii noqon karayo wasiir maalinta uu ku dhawaaqana aan ka baxay madaxweynuhu taas u ballan qaaday Muuse Biixi maanta waxaan maleynayaa dee ummaduna way dhageysanaysaa isna inuu dhageysan doono horta tuu ballan qaaday taasay ahayd tan markii dambe aan ururka ku furnay taasay ahayd maalintii ururada uu furay ta aan isku casilayna sidaasay ahayd tan hadda meesha ka baxdayna waa tii waxayna meesha ka baxday wixii laascaanood ka dhacay baa ka saaray totally oo maaragtay dee keenay dadkii aan ku matalaynay siyaasadda aan doonaynay inaan ummadda ku soo darno dee maanta waa kuwa halkaa maraya oo halkaa la gaadhsiiyey marka taas bayaan horta midda aniga iyo Muuse Biixi naga dhaxaysay dan gaara nagama dhaxayn haba yaraatee waxaa naga dhaxaysay dan qadiyad oo anigu aan ku xidhay oo condition ahayd in dalka aan doonayo dadkiisa inaan isu keeno heshiisiiyo oo ummadda tabanaysa wax 30 sano dhibaataysan ciidamada inta dalkii lagu wareejiyay haddana wax development iyo horumar iyo amni aanay ka jirin in meesha laga saaro si dadku isu raaco intaas inta naga dhaxaysa tiin hadda way dhamaatay leedahay way dhamaatay taas waxay ku soo afgo'day wixii la saanood ka